dhaqanka iyo waxgaradka beelweynta Xawaadle. Kulanka ayaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ay weheliyeen gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Muuse Salaad weheliye, gudoomiyaha degmada Moqokuri Maxamed Cabdi Maco, gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Ciise Maxamuud Cabdi, gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absugo Nuur Dheere, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Hirshabelle oo hogaaminayo xildhibaan Cabdulqaadir Maxamuud oo Bakar Dhagaweyne iyo xildhibaan Daahir Cali Maxamed, maayarka beledweyne Nadar Tabax Maalin, ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha difaaca ciidamada deegaanka Macuusleyda Cali Jayte Cismaan, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Hirshabelle Mudane Zakariya Qaalid Cabdi Jimcaale iyo mas'uuliyiin kale ayaa degmada Moqokuri ee gobolka Hiiraan kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelweynta Xawaadle. Kulanka ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo quseeyo amniga, dib u heshiisiinta iyo horumarinta adeegyada bulshada muhiimka u ah. Inta uu socday kulanka, odayaasha dhaqanka ayaa si qoto dheer u falanqeeyay xaaladda gobolka, gaar ahaan baahiyaha ka jira beledweyne iyo deegaanada kale iyo degmooyinka gobolka Hiiraan ay ka kooban tahay, waxayna xuseen muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqaynta iyo la wajibaaridda howlgalka ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa dhankiisa uga mahad celiyay odayaasha dhaqanka doorkooda iyo dadaalada ay ku bixinayaan mideynta bulshada iyo ka qaybgalka howlgalka ka dhanka ah argagixisada. Waxa uuna carabka ku dhuftay in muhiimadda ay leedahay in dowlad goboleedka Hirshabelle lala garab istaago bulshada ku nool diyaarinta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale sidii gurmadyo kala duwan loo soo gaarsiin lahaa. Kulankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo degmada Moqokuri uu ku sugan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo degmada Moqokuri shalay u soo gaaray dardargelinta howlgalka ka dhanka ah maleeshiyaadka arxanka daran ee Al-Shabaab. Dhammaan dhinacyada kulanka ka qayb galay ayaa isku raacay in la dardargeliyo dadaalada lagu sugayo amniga iyo dib u xureynta, dib u heshiisiinta, horumarinta adeegyada bulshada u ah. Kulanka ayaana kusoo dhamaaday guul iyo is-afgarad. Maxamed Ibraahim Siyaad, Telefishinka Caalamiga Hiiraan Bile, degmada Moqokuri gobolka Hiiraan.